هذا هو هنيريها wuxuu ku hayriyahay inuu gurigiisa iibiyo guri 3 balood intuu iibiyo qol dhisto markaas ahanade 3 balood buu iibinayaa 4 balood in aan guri ka taagayn wada dhisan kadib wuxuu ku fakarayaa inuu laba qol kala soo dhisto kuwii waalidka ee dhalay way hareerey ka taagayeen wuxuu leeyahay waaya 3 balood ee dhisan baan ku iibinaa hadda maxaa noo soo dhisi masoo ana balood idin soo dhisaya inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun dadka maskaxda maxaa furiyay inaad tagto wadan kale oo dhibaabo badan u marto oo taraag dheer u gasho wala aaminto xiniyahaaga iyo qofnimadaadii iyo dadnimadaadii inay jirto meel kale oo aan ahayn wadankaaga maxaa ka dhasha maxay keentaa inaad shul ama shil geliso wada la oran jiray hadda ka hor wadiya lacag cidii garanaysaa ama dadka ka maqashay way taqaaneen wada waxay ahayd dhibaabo badan oo qofka hadduu marana wax ka helo uu ku nabad galo haddii uu dhaafo oo nabad galo wax ka helo haddii kalena deeqoorta loo dheereeyo moogtay uu dhaadhaco la dilo macnaha iyo darajada ay keentaa maxay tahay inaad aaminto qofnimadaada iyo dadnimadaada inaad markaa tagto wadan kale oo reer leeyihiin ama dad leeyahay ama dawlad leeyahay markaa tagto inaad qof noqon karto bas jirtaa marka laga siiyo wadan kale oo aad marti ku tahay sharci laga siiyo inaad ku faanto inaad wadanka jinsi ahaan dhalatay Soomaalida mooyee cid kale adduunka sameeyay sababta ma jirtaa marka hore bariidada baydka xaq ah ayaan isla balmarin bulshada barinay ma barideen iska balaalayeen assalaamu alaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuhu gidigin badawdayaal meel kasta aad joogtaan nabadgelyada biyo naxariisiisu mid gaarka ayaa tagoodintu haydina haadina soo dhawaada magacaygu waa igare yaasiin xaaji halka iga daawanaysaana waa maqal baahiyaha fogaan gaarka ilaa TV waxaan rabaa muuqaal yar oo kooban in la wadaago oo waqti badan aan ka qaadanayn wuxuu isugu jiraa dhiirigelin wacyigelin iyo waanasiin buu isugu jiraa waxa kalifay inaan soo fadhiisto halkan dadka qaar baa ku sheekeeyay markii dadka hortooda soo fadhiistaan ma aan jeclayn inaan halkan soo fadhiisto ma aan jeclayn inaan moogta idin la hadlo ma aan jeclayn inaan arko anigu waa ku faraxsanahay inaad daawataan oo idin la hadlo oo aad iga daawanaysaan halkan aad baan ugu faraxsanahay laakiin waxaan ku faraxsanayn arrinta aan dib idin ka sheegi doono waxay moogtay milgeeya maamuus adiga mudantiin gidigii meel kasta aad joogtaan mudane iyo marwada ina marka la idin yiraahdo nabadgelyada ee biyo naxariisiisu mid gaarka iyo tagoodintuba gidigiin haydin ahaadeen waxa hubantiya waan dambiga raacayn dad badan oo Soomaaliyeed oo barmageyda ah ama barmageyna ah haday yihiin haween iyo haday yihiin rag badee haday yihiin geesi laqana iyo gashaanti guud ka fidhatay iyo haday tahay hooyo ubad leh intuba inay wado mahalaka u mareen si ay u helaan ama niyadooda uga dhaadhiciyaan haddii wadan kale aad tagto qof baad noqonaysaa laakiin wadankaaga haddaad joogto qof ma noqonaysid way nagu badan tahay Afrika waxa la qabnaa qaarkeed laakiin number 1 baynu xagga dulliga iyo liidnimada ka nahay wadanka adduunka ugu qanisan waxyaabo badan oo adduunka laga helin Ilaahay u gaar yeelay waa Kenya waa geeska Afrika Soomaaliya wuxuu qofku aaminayaa waliba dadka dhalinyarada sheegta qaarkood waxay aaminayaan hadday tagaan wadan kale oo hireeleeyeen ama dawlad leedahay oo ku tacabtay oo waqti la galiyo la qurxiyay hadduu tago inuu qof noqonayo hadduu kiisa joogo ku nagaadana inuu dugaaga uusan waxba dhaamin inuusan waxba qabsan karin inuusan horumar ku fakari karin inuusan waxbarashada uu bartay uusan wax ku heli karin inuusan isagu shaqo abuur samaysan karin waxa mid jaamacad ka baxay jaamacad buu ka baxa waqti baa la geliyay qarash baa ku baxay xilli badan baa la siiyay xoolaha anagu jaamacadii baan dhameynay xagan aadna dabarka iska taariibayna qof markuu wax bartay iska xiiso hal abuur weyn ay keentay macnaheedu ma marka wax baratay lagu tabcay inaad shaqo lagu geeyay inta gacanta lagu qabtay inuu shaqeeyo jaamacad bad ka soo baxday oo ka fariiso lagu oranayo ma hadee waa adigu hal abuur leedahay maskaxdaadu shaqeynayso kadibna ay waxyaabaha dadka aan wax baran ay kaga duwan tahay iyada dhixda laga dhaxlo laga arkay hanu fiirsado dadka ugu badan ee moogtay ubadkooda tahriibta la jecel ila raadiyay waa dadka guryahooda iyo aad u farabadan xogaaga hantidan iska haysta miliya dhif ayaa ku jira dadka saboolka inay ilmahooda tahriibiyaan waxa guri weyn oo qandooda meel ku yaala oo reerku tahriibaha iska taagan ay iibinayaan waxay iibinayaan hadda waa bino meesha iibinayaan waa dhul waxay iibinayaan halka inta gurigan qof lagu qarash kareeyo loo diro meel kale hadhow marka lagu xiro meelaha la isku xidhay magafa iyo wixii la hal maala lagu xiro ay mid kale hadana iibinayaan ama laba kale meesha loo dirayana waa meeshii Yurub cidii joogtaa garanaysa iyo cidii moogtay u fiirsatay
oo meel kala joogta kulli anigu Yurub uma aqaano meel darajo iyo xigmad iga soo galaysa intaan aadadii أنا أقف هو موادين وهو صومالي وهو بيور وهو أفريقيا ده أو مسلم سنويين هذا برحلة إن إحنا جاي حوالين حاجة مركز طبعا قفنا قنايو ليه اللي يكون مشفتو تعرف بين مودي هتان كولا وأنا قدام يورب توق نقطة ليه يوجه ريان بل يهليك حيانو يجرا ما كسر والله جديد وبالله جديد وطلاه جديد شرع يرى وساق عطدي قفنا مين مكرنا يدي الله لا يسافر يرى من اللجوء على ده والله جاي بين معنا فوق سمايو كانت أفريقيا مكيلية برامج كان waxba yana si aragno dadka qaar baad moogtay dhari kulku fadhiyaan horeyba u sheego iska degdegsanay haddaan ku soo ururiyo waxaad ogaataa qofnimadaada iyo dadnimadaada iyo sharaftaada iyo cisigaaga iyo midnimada qofnimadaadu dee inaysan ku jirin wadan kala tagto oo saantiisa qaadato ama sharcigiisa qaadato inaadan iska dhaadhicin wadankaaga haddaad joogto inaadan shaqaysan karin dee shaqada hoos bay ka bilaabantaa nolosha qofku maxay ka bilaabantaa waxay ka bilaabantaa markuu moogtay intiina uurka iyo xaggaaba aadintii uurka ku jiray halka ina aadin muxuu ka bilaabmaa uu soo baxa muxuu sameeyay dawuu ooyaade kadibna hadhow aabbu uu bartay eedu hadhow maxaa ku xigo hooyada ku xigtay hadhow uu istaagaade intuu istaag maxaa ka horeeyo horta uu isrogrogaa kadibna uu isrogrogaa gurgurtaade markuu gurgurta muxuu sameeyay dawuu istaagaa kadibna talaabada la circiraa gidaarada qabsadaade hadhow muxuu sameeyay dawuu socdaade hadalkaas qof moogtay ka faanaya kabar yar inuu qabsado kadibna kabarku uu kobcadee oo uu kobco kadibna saa ganacsi ku sameeyay كورادو جروب سنة ذات يقرب قبل عليها مو صمينا يادي وهوس تلو مسحنتها تبي سرويشو واحد سوى حكى بلا مان هوس كدين وحيس على الكر لستو مركب بحث ويصاب بلا مان تمضى حيلا صبح كدين ويكرتها حنو قد شيء ده هذا ودك حاجة تشوجا هذا ودك حاجة تشوجا بعد كبر قبل عليك كرتها بعدين والد كاجي كل الله يدك إيه الكهادي ده بريء بريء بطهي هذا مول بالجلين نقطة هذا جلين دي كدين وكوب الله لا يايو حرارة يقولون كاسكي لعلنا يسايو ربي باكوك بعينيو مركز دمانة ديرو بلعدو ودور نقول قاري كرادي وحارك نقول اللي في ساعة على برمو يعني إذا لحظة يمان ترها لها هذا وحن أركا تدكيو اللي غفر الحري من اللي هذا يورو بين هذا وبيحي دتك يدلك يسوك عي ونيدك الشري يصور في سوق الميل هبلاء وفوين بس يصور سوق اللي سوق ماشي هبلاء وصور كوك الله قرح بضار فمثل كلا يصور كارك هي كسي اللي تانا صور باهي كعناية وحنا نقول شيء جيله أما حوالها ده إنه دقناه مكروه ميل كدو كفر بيوهان بعقله كدن وهي كعا كدن جيله اسمه جددو هذي تشيلات هاي بيها أفكار مساره جيب شو سهي كعسية ويل كيرك عنا وكداله هذاك ساقف وين راقوش شجعنا ده قام شجعنا يا كدن الصور يرى ميل صوري وهي كعي هلا ميل بالقرح هاي إنك بلا ميل بلو ولا صور كسوق لا هاي أنت هريب إنك بلا قلبك كقبيا قل غير كذا ولسه ما قل يرى الله لسه معنا سنة نفط يقول يرى الله لسه كيف أوي وحيوك اللي في مركز كيدتك اللي يرى هاي الصوماليين ومن الحبس كتشرة يوم الحبس يكون السعودية أنا أركيني يهي واحد يكتب مركز ميل آدي سي أسهمين يسوع أما قف ميل الله دري لي أسهمين تجمد أما أوشة ماشة تلا تقف سهم داري لو دري كذي كده نسوي ورسني نانشري أما هو جان كلولايا أما دين جان شو وضعه dadka guriga ku nageynaya ama oranaya intuu xogaa walaac soo galo sahan hala diro oo laga daba diro waxaan u socdaa inta sharciga yar qaadatay oo kaliya inaad eegto inta qolku qabyada ka yahay yaa inta eeganayso in misaa xabsi ku jira oo jooga meelaha loo tahriibo in misaa dhibaaba ku haystaan oo jooga meelaha loo tahriibo in misaa yurub iskula sheekaysanaya oo jooga in misaa nolosha ka dhacay oo bilowday jiidati لا يبقى كل داري فكر كأجا نقوله وده كومنتيجا هدات شوكتو أما دور كايسو قارد لي يوروب إمسا حبسك كوتشرا ليبيا ومجفية عربتها قوة صومالية وراعي ومجفاء وهو صومالي إسبارك وين ستشري وحاجة أبد شيء صومالي هردك طيب كنت ديالو كوافر بيرو موقتها ويل قبلنيه ربي بان أقوم هنغيا مجفية عربتها شيء يدي بس أفريقيا بوح ليبيا كرتها ليبيا بوهميا ليبيا أول أفريقيا مين أول ليبيا دي كان يديني إيش هذا دي كان يديني تاني كل وعديها لكن مو إسكا أفريقيا أفريقيا كليبيان كودن كيسي بربراي موقتها معشدة كل عريب وسيمرة يا كدنا كوحها كدنا عايزة حبس جلين كراه أما جليه بدي ورب المكاهنا وقالك الله يو موقتها شكلها قصية وصيت هيود عنا وصوت دوجتونا وشكلهم كانوا قبرتين وعيجلين تاها دير بسوق ليو
أنا وأنت مال صوفر يستوقف كله لح تفهم تدميه ربي بقى عاير أنت واحد كل شيء يجي عذاب بالله قال عده إذا كان واحد خشمين يا يونا دين شيء وحشاك لله وحدين شيء جيا ويقول يرجل لي إن نقف لماذا هذا يبتد لماذا هذا أي سنكتشين المال كلا تكتب يقف لماذا هذا أورك خلاص صوب حظي صار مسين يمين على تقف سوى نعس هذا الشيء كدي نفريد نقينا ورك وماي يا تقف صواب أما سليل يهردان دان وهو وحراها لا بين ويدينه مركو وحبرتي فريد نقينا ما يمشي ردي والله صوب حيسا سيدا waxa ka dhigan qofnimada adiga kugu jirta macnaheedu ma aha inay xagga kugu xawilan tahay oo marka aad ka daba tagto oo aad raadiso tii Allah xaggaas jirtaayo marka xagga aan ka helo anigu aan tagaan moogta helaya waxaan ma yeesi ka bedelaysan ilaahay jiray baan idin la hadlay horta khaalib adiga ahaanaysan wuxuu dheriga maxaa kulka ka keenay marka suuqii karka maxaa ka keenay suuqii kulaylka ama dabka waxa iga keenay markaan arkay garbahaygii dhalinyaradii Soomaaliyeed oo noqotay mid socda iyo mid xabsi ku jira mid hanyar hada wuxuu ku hanyar yahay inuu gurigiisa iibiyo guri 3 bilood intuu iibiyo qol dhisto markaas ahanade 3 bilood buu iibinayaa 4 bilood inaad guri ka taagayn wada dhisan kadib wuxuu ku fakarayaa inuu laba qol kala soo dhisto kuwii waalidka ee dhalinay hareerey ka taagay xilliye waaya 3 bilood ee dhisan baan ku iibinaa hada maxaa noo soo dhisi masoo ana bilood idin soo dhisaya inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun dadka maskaxda maxaa furiyay wariyay Soomaaliya sida isu dhaamo tahriibtu darajo iyo xiniyo iyo qofnimo maaha sharciga aad qaadanaysa lagu siinayo dawlada Soomaaliya jinsiyadda dibad iibsatay runtan ku sheegaya barido diyaaradii ku dhacday meesha liyaa Ethiopia imisa qof Soomaaliya la socday intaas oo qof Soomaaliya la socday kadibna maxaa la yiri waxay ahaayeen Canadian waxay ahaayeen Mareykaniyaan bay ahaayeen waa jinsigaagiyo saanteere lagu siinayo European ba laga dhigaya mustaqbalka dalkana moogtay waxa la qiimeeyaa tusaale yar baan ku siinayaa marka la eegayo xooluhu inay kobcayaan anigu nin xoolo raac baan aniga geeli yaari raaco kuna faana cid geeli yaariga soo hayo wada isfahanaa marka la eegayo xooluhu inay kobcayaan waxa la eegaa waxa inta dhalanaysa iyo inta dhalatay baa la eegaa lagu qiimeeyaa ahminka soo kacaya ijilaalka laga baxayo sidaas ka dhigan dalka waxa la eegaa dadka yareed u soo kacaya si yihiin aqoontooda dadnimadooda firfircoonidooda wadaniyadooda xagga wadanideeda ka wada hadlayeen xagga ka wada hadlayeen way isku ognahay inaynu ka liidano ka dhinsanahay digada aynu ka nahay waa isku ognahay taas iga digeene inaad niyadaada gashato qurba jooga berri inaad gashato waxaan manayaa xigmadda ka weyn waxay tahay inaad gashato qolqol jooga berri inaad noqoto gidiga waxaad leeyahay tan maxay idin siiyay hees yar baan kaga tagayaa oo aan hadda ka horduulay oo tahriibta ka hadlaysa waxa oranaysaa dalshii hadda dunida reer galbeed u dagaagiyo dalandool u tahay duulkii horta u dareerayba deeqadaysano dayaacad ku qaba imisa ka horeeyo deeqadaysana sharci baan weyn imisa Soomaaliya ilaahay ku dhaariyay Afrikaano baabur soo dhigay inta xaalad ku xumaatay inta tabarkeeda fiican iyagu subxaadu iyagu weydii ku dhawaabaysan dalshii hadda dunida reer galbeed u dagaagiyo dalandool u tahay duulkii horta u dareerayba deeqadaysano dayaacad ku qaba تفراد جان أدم تقول من أنا هاجي هولا هاجي تفراد وده هاجي تفريس أنا قف ميه قاعد يحرد يعني ترى محمد قفصان كرو أنا متشوف كره هبل هو قلب يسار دي سات هبل قل خلاق بيا كا تفراد جان أدم تقول من دل يرفع يكود يرونه تبقى عبد الشاب وراد بري أنا قلت عيد ولا جفاني كذي لكن هذا ولا جفانا وفي بعض السوت تجروا يدبت هني عرض ويا عيسى أنا عيد أنا نص يا بكون أنت كوي ما حاجة سعيد أنا نص تفرياد جان أدم تقول من دل يرفع يكود يرونه تبقى عبد الشاب وراد بري ترى إنه هبيحن تبدنا كتشوك تلاليمي يهوس تنجيج وفرديو يدبع المال توبي جمرسين تبدها حداد دائما كتاي دحنا عنا كم ده حسابات دين يتشعيل دعاء قبتي الدرين إذا وعن يدرس كرباه تبدوه مرها دبع سنك الجار دول كي تجا دالي أو كتشبي درسي إياه حداد دوج إيجيسو درنت هاي وناك يدرس سر دلك حاجة هيو دقيق وقفلان ترين وهبيحن تبدنا كتشوك ترين وهبيحن تبدنا كتشوك بدي واحد لا ياهي دلك استاد شوكتان بالجية ماموس أيضا نجيب دنتين واحد لا أنا هاي تقف همية إن يجلس يكون شفتو أنت أفريقيا شوكتو كاره وضك عجيز كأفريقيا شوكتو يحنيه يشرف يقف لين ملي هديات كل فكرية حماية دوانة وحشاقيو هو تصالين
ugu filan kulli waan u sheega dad iga horreeyay oo iga aqoon badan oo iga muugtahay iga maamuus iyo milgaba badan away sheegeen laakiin waxaan ku ururinayaa kaliya qofnimadu adaa samaysan kara ilaahay uu ka abuuray muslim buu ka dhigay dadka dunida ku qaalisan afrikaan buu ka dhigay kuwa afrikaanka ugu sii qaalisan baa tahay wasaan anigu aqaano waxaad adigu isku filaan kartaa qofnimadaada iyo darajadaada inaad adigu isku filantahay isu sheegi kartaa marka adigu iskala shawtadee haddaad markale kugu celiyo maad arag qof markii hore dhaandhaan saleeliyo sawaabaho saga gar inaad eeraan waxaraha la weydiin ah oo markuu aqoon bartay noqday fariid dhalay ma jiro weligaa maad arag qof isagoo dhaandhaan intuu xaggaa kaa aaday isagoo fariida soo noqday dee waa meeshaynu sheegnay yurube weligaa maad arag kuwayna qarribeen edeegyada inoo kala ootay ee maamulada iyo calanada qabiilada u bixiyey xaggee ka yimaadaan inta badan waxay ka yimaadaan wadamada kale waa nimanka weelka wax lagu soo shubtay inagu soo noqda iyagoo weela oo wax lagu soo shubtay inaga inagu soo noqda markaasay mudaba yaacna ama saacabada u sunnaa de kulli aniga saacabna iga heli maayaan taageerana iga helayaan siyaasi Soomaaliyeed waliba ka wadankeenu iga helayaan aniga wuxuu iga helay wali ma arag waxaan leeyahay dikiina dumiyana Soomaali buu ahaa siyaasi sheegtay ee afka inoo riday qabiil inagu duminay waliba ka hadda inoo boodayay inoo horboodayay ururada inoo sheeganaya maamulada dawladda ku sheegayana ee madaxda inoo sheeganaya de kulli waa kuwaasuune waxaan leeyahay inta quraad tusaale kaaga filan nin kastoo aada meesha aad sheegaysaa aad ku orado ee qurbaha ee jinsiyadiisa siisanaya wax yar oo aan macna ku jirin isagoo ugu soo noqon maayo de wadankiisa iyo dadkiisa toona u meeldeeyay sharaf iyo cisina u haya waxaan leeyahay hadalka dambi ku badiyay raaliga ahaada sida ilaahay jiray si ka kulkulada ay dhahaleen raali badiga aan san gidigin salaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh